xafladan oo si heersare ah loo soo agaasimay isla markaana lagu taageerayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa cusub Xasan Cali Khayre ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo ay soo agaasimeen ururka midnimada Soomaaliyeed ee wadanka Finland. xafladaasi waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Mawlid Xuseen Guhaad. haddaba warbixintaasi ay ka jeediyeen mudanaha iyo waliba mas'uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee Finland waxaa ka mid ahaa sida tan sida horeba loo sheegay kulankan qiimaha badan oo aan maanta iskugu nimid oo aanu kulan taageero aan ku taageerayno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo isla markaana ra'iisul wasaaraha uu soo xushay Xasan Cali Khayre isaga yaan u sameynay kulankan inagoo ka jawaabayna sidii qiimaha badneed ee guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda joogta ay u soo dhaweeyeen una taageereen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaan anagoo la wadaagayna ayaan kulankan maanta iskugu nimid wax badan baa rag iyagu maaragtay dagaal ku jiray wax badan baan tiiraanyeysnayn wax badan baa wiilo la waayay wax badan baa mashaakil badan aynu ku dhex jirnay waxaan ka baryayaa ragga iyaga waaweyn oo age-kayga iyo wixii ka waaweyn ah oo wixii secondary school ka baxay Soomaaliya markay nabadda ahayd inay maanta Soomaaliya gacanta ku qabtaan please inta ka badan ma si baaba'sanaan karto aad iyo aad baan mahadsantihiin waqti dheer bay qaadatay mudaynu sugaynay ka soo shaqeynay aad baan ugu mahadcelinayaa inuu maanta nala joogo walaalkeen Mawlid oo maaragtay madaxda sare ee waddanka ka mid ah sharciga Soomaalida waa la joojiyay mudooyinkan dawladii nabad baa ka timid waddankii nabad baa ka timid baa la yiri doodeenu wali waxay taagan tahay nabadu ma sugna laakiin dadka yimid sharciga hala siiyo insha Allah ta'ala inta joogtana waa kaaga faa'iideysanayna in arrintan loo xoojiso oo mas'uuliyiinta Finland kula kulmaysiino waxaan idin sidaa salaan iyo cudurdaar oo ii soo faray madaxweynaha waxaan kaloo wakiil ka ahay buuxa guddoonka labada aqal golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee ay hogaaminayaan mudane Jawaari iyo guddoomiyahayga Cabdi Xaashi sidaas oo kale waxaan idin soo gaarsiinayaa salaan la mid ah midda madaxweynaha uu idin soo faray oo uu leeyahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Finland waxaan ka codsanayaa inaad iga guddoontaan salaantaas madaxweynaha halkan ka jira waa wada garanaynaa laakiin maxaan qaban karaa oo u horeyso oo aan dadkii iyo dawladdii idinka gaarsiin karaa awalan in la helo maadaama safaarad laga furay Finland ay leedahay dalkii mid la mid ah oo dhigeeda ah oo daboosho baahideenna lama yaqaan waa waxna dhibay qof loo jeedo oo Soomaali ah in la yiraahdo ma cadda dhalashadiisa dad caddeeya in la helo si kastaba ha ahaatee shacabka Soomaalida ee wadanka Finland ayaa ka codsanaya madaxda Soomaalida inay ka dhabeeyaan ballanqaadyadii ay la galeen shacabweynaha Soomaaliyeed Maxamed Bashiir oo Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Cable Helsinki Finland